madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa madaarka magaalada Djibouti caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti maanta kulan kula qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti iyo xubno ka tirsan golaha dawladda dalkan Djibouti. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa oo ku socday dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris oo ay casuumaad ka heleen ayaa inta ay ku sugnaayeen madaarka caalamiga ah ee magaalada Djibouti kulankooda asaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti waxay iskula soo qaadeen xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo Soomaaliya iyo sidii sare loogu sii qaadi lahaa. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalkan Djibouti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed ayaa si weyn iskula la faguray xaaladaha Soomaaliya iyo isbedelada dawladda Soomaaliya ee ku hanatay goobo fara badan oo ay horey uga tali jireen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. markuu kulankooda soo ilaaday madaxweynaha waxa ay ku sheegeen kulankooda in arrimo badan ay isla gaareen isla markaana labada wadan ee walaalaha ay ka dhaxayso xiriir qoto dheer. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii kulankooda soo ilaaday waxa ay u ambaxeen magaalada Paris ee wadanka Faransiiska halkaas oo wafdiga madaxweynaha Soomaaliya uu casuumaad ka helay. wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Muuse Gaare TV-ga caalamiga Somali Channel Djibouti.